magaaladii waa la dumiyo dadku de kada adaa duminaya magaalada kii soo duulay ilaahay haduu ku roon yahay dadka guryihiisa ku dhex jiray ee duminayay ee dadka leeynaya dhiiga daadinayay yaa leh nabadgelyadii cid baa ku cayaaraysa waxaan arkayay Salmaan Maxamed Aadan oo shalay ka hadlayay golahooda oo leh wada hadalkii waxa diiday garaadada dhulbaxantay waa nasiib darro weey limaad ku soo duushay gurigiisii duminayso ilaahay aduu dadkiisii laynayso inaad hadana ku tiraahdo wada hadalkii buu diiday waxa ka haboonaan lahayd inuu bareero oo yiraahdo inay isdhiibaan bay diideen hadalkaasi hadal la garan karo yu ahaan laha annaga diidna inaanu isdhiibno annaga la dulli qaadan mayno annaga ka dooranayna inaanu gunnimo ku noolaano geeri ka dooranayno dadka yaga ka doortay waxa aanu diidnay waxa weey anoo ku dilaya isacabtum waxaanu diidnay waxa weeye anigoo guryahaaga duminaya dushooda meydkaaga dushiisa igula hadan waxaanu leenahay annagu burco dumin mayno hargeysana ma duminayno barbarana duulaan kuma nina ciidana nagama dul joogo laakiin haday arintan sidan ku sii socoto oo waliba dilka cayna loogu daro meelay aadi doonto xaajadan alla og meelay aadi doonto xaajadan alla og waxaanu adduunka u sheegaynaa ciidankan guryaha iyaga duminaya dadka iyaga laynaya hana laga dulqaado waxa aanu doonayna waxa weey markaas bay wada hadal imaan kara markaas aanu ka hadli karayna dhibaatada noo geystay mid af leh mid adin leh markaas aanu ama afin karayna ama aanu aarsan karayna laakiinse inta ciidanna dul joogo nin dhaglow maqal inta ciidan guriga iyaga ku jiro wax wada hadal loo dhaxaynaya ma jiro wax wada hadal aanu la galeynaa ma ay jirto haddii xabadi joojin imaanayso waa xabad joojin ciidanka lagu qaaday ta kaliyaanu damaanad qaadi karayna wata xabad joojin ciidan lagu qaadayo guryahooda lagu celinayo annagu waxaanu masuuliyadeeda qaadi karayna ciidankaas oo guurayo ku iyagu inay xabad ku ridin laakiin ciidankaas oo degan ma masuulad qaadayno in ay xabad laga daynayo maxaa yeelay ninkii aabihii dilay wiilkan ee walaalkii dilay ee gurigiisa dumiyay ha ku dul joogo ha ku nabad galo meelay adduunka ka dhacdaa ma jirto waxaanu leenahay maamulka isaaq ee Somaliland maytida aad hafraysaan ka daaya maytida garaad Cabdiqani baan kala go wadan seexin ana ka dhaxlay garaatooyada aabahay baan seexin awowgay baan seexin chief aaqil Ali Koran seexin ilaahay haduu ku roon yahay xad annaga iyo isaaq aanu ku wada jiro oo Soomaali aanu kaga soocannahay oo jiraan jirin warsangeli iyo isaaq xad ay goori uga soocan yihiin Soomaalida kale oo ay baan jirin xad qabiileenu leenahay xad qabiilo oo warsangeli iyo isaaq u dhaxeeya jira xad qabiilo oo dhulbahante iyo isaaq u dhaxeeya jira ka weeye ka kaliya inuu ku xisaabtamayna gaala Soomaali qaybsanaysay oo Talyaani iyo Ingiriis aha oo iyagu sidaynu wax u qaybsanaa 1884 soo qaybsaday baynu inagu ku noolaanayna idinka yeelimayn nabad hadaa doonaysaan guryihiina ku noqda nolol hadaa doonaysaan guryihiina ku noqda labada baad ku heli karaysaan annagu nabad iyo nolol loo taala inta wiil facay ama asaaga iyo dhulka yaga sheeganayo nabad iyo nolol waxaanu ku falaynaa ma ay jirto wabillahi tawfiiq ma sha Allah